دور wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogtaan u diyaar garooba wararkeena duhurnimo waa duhurnimo Khamiis waana 13 December 2020 waana maalintii ugu dambeysay sanadkan 2020 saaxiibayaal wararkeena duhurnimona kooda ugu waaweyn waxa qayb ka ah Ra'iisul Wasaare Roble wajigii la soo baxay madaxweyne Farmaajo xilka qaadis oo durba bilaabay Fahad Yaasiin madaxweyne Farmaajo ballanqaad culus ka helay dawladda Qatar iyo qorshaha mucaaradka wararkii ugu dambeeyay shirka ka soconaya magaalada Garowe oo maalinta labaad galay khudbad jeedinta mucaaradka oo soconaysa maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe Mahdi Guuleed oo kulan waqti dheer ku wada qaatay magaalada Garowe ciidamada ammaanka oo toogasho ku dilay dable hubeysan Muqdisho ku sugan al-shabaab waxay warar ka fuliyeen gudaha Kenya wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe waxa uu bixiyay xog culus oo ka dhan ah dawladda federaalka qayrase khudbad cajiib ayuu ka jeediyay shirka Garowe dhammaan warbixinadaas ayaan eegi doonaa saaxiibayaal kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalkana taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino aynu ku bilaabnay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa u muuqanaya mid waji kale la soo baxaya isagoo sidoo kalena ay soo baxayaan khilaaf hoose u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba Ra'iisul Wasaare Roble sida xogaha hoose ay sheegayaan Roble ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilaabay xilka qaadis isagoo sidoo kalena shakhsiyaad saaxiibadiisa u magacaabay xafiisyada Ra'iisul Wasaaraha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay xilka qaadis uu ku sameynayo xubnihii la soo magacaabay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ee u qaabilsanaa xafiiskiisa kuwaas oo xiriir dhow la lahaa madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa gabi ahaanba soo afjaray filadii xiriirka ahayd ee madaxtooyada ka dhaxaysa labada xafiis ee madaxweynaha Soomaaliya iyo ka Ra'iisul Wasaare Roble kadib markii xogii joogtada ah ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo markii hore laga soo magacaabay xafiiska madaxweynaha guud ahaan buu xilka uu ka qaaday kuna bedelay shakhsi cusub asaga uu wato dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare Roble uu doonayo inuu isbedel muuqdo uu ku sameeyo maamulka xafiiskiisa isla markaana uu keensado shakhsiyaad asaga si toos ah kaga amar qaadanaya maadaama hore u jireen shakhsiyaad badan oo si toos ah kaga amar qaata xafiiska madaxweynaha oo markii hore madaxweyne Farmaajo uu soo magacaabay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha taas oo la sheegay in hadda fiiladaas uu soo afjaray Masar Roble talabadan ayaa raacaysa ama muujinaysa awoodda muuqata ee markan la soo baxay Ra'iisul Wasaaraha xilli xaalad kala guur ah dalka uu ku jiro waxaana la sheegay in fiilooyinka isku xiray labada xafiis in guud ahaanba meesha laga saaray Masar Roble waxaa la sheegay inuu haysto inuu yahay Ra'iisul Wasaaraha uga awoodda badan marka loo eego burburkii kadib xaaladda dalka lagu jiro isagoo aan xukuumaddiisa wax mooshin laga keeni karin talaabadaas oo dadka badan ay ku micneeyeen inuu yahay Ra'iisul Wasaare haysta fursad weyn laakiin wali aan ka faa'iideysan fursadiisa iyo awoodiisa sidoo kale dadka qaarkood ee falaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaaruhu u muuqanayo mid markan ay ka sii hoos baxaya bahalka ama gacanta madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay xogaha joogtada xafiiskiisa sidoo kale waxa uu magacaabay afayeenka xafiiskiisa iyo waliba agaasimaha maamuuska xafiiskiisa oo dhammaantoodba wajiyaal ku cusub marka loo eego xafiiska Ra'iisul Wasaaraha taasoo meesha ka saartay shakhsiyaadkii madaxweyne Farmaajo ee marka hore u soo magacaabay halkaasi madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin waxa la sheegay ballanqaad culus mar kale ay ka heleen dawladda Qatar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka fakaraya dib u soo laabashada iyo waliba sidoo kale habka uu xoojin ololihiisa dib u doorashada ayaa la sheegay in dawladda Qatar mar kale ay dhabarka u ridatay ballanqaadka iyo taageero xooggan in la siinayo madaxweynaha si uu ugu soo baxo doorashada dalkan uu hogaamiyo 4 sano kale oo soo socota hogaanka musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlayay shirar ka soconaya magaalada Garowe ayaa dawladda Qatar ku eedeeyay maalgelin dadban imitos ba inay ku sameynayso dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo beesha caalamka ayaa la sheegay in ay markaan doonayso inay isku keento awoodda dhanka siyaasadda isla markaana waxa la sheegayaa in beesha caalamka ay ku kala qaybsameen sida ay u kala taageeri lahayn musharaxiinta laakiin beesha caalamka ayaa la sheegay inay ka go'aanta hal aragti ah sida loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal oo loo wada dhan yahay xogo gaar ah ayaa sheegaya in dawladda Qatar ay villa Soomaaliya ka caawinayso dhaqaalaha ku baxaya doorashada dalka isla markale madaxweyne Farmaajo ay doonayso in mabda ahaan siyaasad ahaan ay ku soo dhisto dalka taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa doonaya in sanadkan mar kale uu ka soo muuqdo qorshaha saaxiibada madaxweyne Farmaajo isagoo doonaya in mar kale Farmaajo lagu hogaamiyo siyaasadda Soomaaliya ee meel xasaasi ah maraysa iyadoo inta badan xubnaha mucaaradka si caqabad weyn u arka maalgelinta dawladda Qatar
wararkii ugu dambeeyay ee waxaan eegi doonaa saaxiibayaal shirka Garowe ka soconaya oo maalintii labaad galay iyadoo khudbadan ay jeedinayaan madaxda ka qayb galaysa shirkaasi oo waxaa soconaya qaar ka mid ah khudbadaha madaxda ay jeediyeen kuwana way hadleen Xasan Cali Kheyre gudoomiye mursal iyo shakhsiyaad kale ayaa khudbado ka jeediyay kuwana wali khudbadooda ayaa soconaysa Garowe waxaa maalinta labaad ka soconaya shirka sanadlaha ee madasha aragti wadaaga kaasoo laga hadlayo dalka shirkan oo mid xasaasi ayaa waxaa soo agaasimay macadka Heritage iyo cilmi baarista iyadoo diiradda lagu saarayo soo gudbinta nidaamka ku meel gaarka ah 2025 xaaladaha siyaasadeed doorashooyinka iyo waliba dhameystirka dastuurka waxaana shirkan ka qayb galaya dowladda federaalka maamul goboleedyada ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale sidoo kale waxaa la filayaa in khudbado ay dhamaantood ay jeediyaan oo hadda ay soconayso qaar ka mid ah khudbadahan haddaan soo qaadano waxaa ka mid ah Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa khudbad ka jeediyay shirka ka soconaya magaalada Garowe ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ahna musharax u taagan madaxweynaha 2021 oo khudbad xasaasi ah ka jeedinaya madasha aragti wadaaga Garowe ayaa Kheyre khudbadiisa wuxuu kaga hadlay arrimaha ammaanka dhameystirka dastuurka doorashooyinka iyo waliba sidoo kale hirgelinta nidaamka federalismka ugu horeyn waxa uu shaacu ka qaaday in Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay ay tallaabo horumar ah gaareysay balse wuxuu hoosta ka xariiqin haatan loo baahan yahay in wax walba laga gudbo marxaladaha masiiriga ah dalkana laga sii gudbo asagoo sheegay in heshiis laga gaarna ay muhiim ay tahay sidoo kale wuxuu intaa ku daray in la joogo xilli muhiim ah oo loo baahan yahay in laga fikiro mustaqbalka Soomaaliya iyo sida ay noqon karto sanadaha soo socda sida lagu gudbi karo xaaladaha taagan waxa uu ka turjumayay khudbadiisa dhibaatada arrimaha doorashooyinka Xasan Cali Kheyre hadalkiisii watay carabka ku adkeeyay shacabka Soomaalida ay u baahan yihiin inay helaan hoggaan dowladeed oo aad u wanaagsan ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo muranka ka taagan asagoo shaaca ka qaaday in muhiim ay tahay in xal midaysan laga gaaro arrimaha doorashooyinka qalaasaha dhacaya ugu dambeyn waxa uu soo hadal qaaday arrimaha diin caafinta oo uu tilmaamay in guul muhiim ay Soomaaliya ka gaartay wajigii koowaad asagoo xusay inay sababtay in lagu guuleysto in dib u soo celinta wada shaqeynta dhaxmartay Soomaaliya iyo hay'adaha kale caalamiga ee lacagta sida hay'adda adduunka IMF iyo waliba World Bank iyo bangiga adduunka iyo hay'adaha kale ee diin caafinta caalamka wuxuu sidoo kale uu sheegay Soomaaliya ku guuleystay in maalgelin badan ay hesho khudbadaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asna halkaas khudbad ka jeediyay khudbadiisa waxay u muuqanaysay mid dowladda federaalka kaga dalbanaya in aan lagu adkeyn doorashada dalkana qalalaasa loo horseedin marka intaan ka bixinay shirka Garowe ee dhanka kale maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo Mahdi Maxamed Guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo Axmed Madoobe oo ina kulan muhiim ah ku wada qaatay magaalada madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan gaar ah Garowe kula yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed kulankan ayaa ka dhacay hoyga Garowe ka degay Mahdi Guuleed kadib booqasho iyo salaam Axmed Madoobe halkaas ugu tagay hoyga ka degay Axmed Madoobe ee caasimada Puntland ee Garowe ayuu ku soo booqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed labada dhinac ayaana ka wada hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka doorashooyinka iyo waliba muranka ka taagan gobolkaas Gadow Mahdi Guuleed Axmed Madoobe ayaa Garowe kaga qayb galaya shirka madasha aragti wadaaga oo maanta maalintiisa labaad ka soconaya si kastaba xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aad u cakiran iyadoo khudbada uu jeediyay madaxweynaha Jubbaland khudbadiisa si weyn uu cabiray arrimaha doorashooyinka haddii aan xogaa isdul istaagno nuxurka khudbada Axmed Madoobe oo ka jeediyay shirka waxa uu sheegay in marra uusan aqbali doonin in dowladda federaalka gobolkaas Gadow ay haysato asagana Kismaayo iyo waliba waa labada gobol Jubbada Hoose Jubbada Dhexe kaliya ay ka taliyaan asagoo madaxweynuhu ku eedeeyay inuu ka baxay ballamihii iyo heshiiskii shirkii 17 September ee ka dhacay magaalada Muqdisho wararka Garowe halkaas in kaga hareynaa khudbadaha wali waa ay socdaan wararkeena caawa ayaad ku daawo doontaan wixii warar ay ka soo baxay khudbadaha madaxdu ay jeedinayaan maalinta labaad ee shirkaasi Muqdisho hadaan dib ugu soo laabano daawadayaal ciidamada ammaanka ayaa rag hubeysan toogtay xilli ciidamada booliisku ay ka hortageen ciidamada ammaanka Soomaaliya saaki howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen degmada Daynile gobolka Banaadir howlgalkan waa mid qorsheysan ayaa ciidamadu waxa ay ku soo qabtay rag hubeysan oo la sheegay in ka tirsan burcad ay dhac ka geysanaysa degmadaasi maamulka degmada Daynile faahfaahin ka bixiyay baaritaano ay sameeyeen ayaa sheegay in raggan la soo qabtay iyagoo oo gaaraya ilaa 3 qof
wateen hub iyo waliba sidoo kale waxyaabo kale oo ka shaqeynayeen sidii dadka u dhici lahaayeen ragga gacanta lagu dhigaya sidoo kale waxay wateen mooto bajaaj iyo waliba qoriga AK47 oo ay ku dhacayeen dadka deegaanka sida uu sheegay mas'uul ka mid maamulka degmada Daynile sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda ayaa sheegay in rag kale ay ku raajoogan kuwaas oo baxsadeen ila maalmihii dambe degmada dhibaata ka waday mudooyinka la soo dhaafay caasimada waxa ku soo badanayay falalka lidii ku dhanka ammaanka iyo waliba dhaca burcad ay u geysanayso dadka rayidka hagaag daawadayaal warbixinadina ugu dambeeyay warkan aan soo gaarnay warbixintana ugu dambeynana al-shabaab ayaa weerar culus waxay ka fulisay gudaha wadankaasi Kenya qasaarayana la soo weerinay in weerarkaas ka dhashay dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa mar kale weerar qasaaro nafeed ka fulisay gobolkaasi waqooyi bari ee dalkaasi Kenya weerarkan oo mid qorsheysan ayaa saacadii ugu dambeeyay ama la soo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaanka Shir oo hoostaga magaalada Mandheera ee gobolkaasi waxaana weerarka la sheegay in dagaalyahanadu ay ku qaadeen saldhig muddo kooban ay gacanta ku hayeen sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa goob fagaara ah waxa ay ku gubeen waxyaabo badan oo ciidamada Kenya ay lahaayeen oo saldhigaasi kaga tageen qoraal ka soo baxay al-shabaab waxa sidoo kale lagu sheegay inay gubeen xarun shirkad isgaarsiin Safaricom la yiraahdo oo ku taala deegaanka dhaca gobolka waqooyi bari ee Kenya dhinaca kale wali ma jirto hadal ka soo baxay booliiska wadankaasi Kenya weerarkan al-shabaab ay ka geysteen gobolka dhaca waqooyiga ee Kenya inta badan al-shabaab weerarada ay ka geysteen halkaas ayaa waxay ku bartilmaameedsadaan xadka Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan gudaha Mandheera ayna ka fuliyeen ayagoona eegta ciidamada Kenya iyo waliba sidoo kale saldhigyada qarsoodiga halkaas ay ku leeyihiin hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeeni maanta waana intaas